السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وعشر كي لو يتبناد مادة financial accounting. maanta waxaan casharka ku qaadan doonaa insha allahu tacaala preparing financial statement horaan usoo qaadanay laakiin maanta tii hore maxay uga duwan tahay tii hore waxaan ka diyaarinay annaga oo dib ugu laabanayno unadjusted trial balance. cashirkii hore waxaan ku baranay trial balanceki inuu laba u kala qaybsamo unadjusted iyo adjusted. maanta financial statementiga waxaan ka diyaarinaynaa through adjusted trial balance. intayna casharka guda gelin bal aan recap ku sameeyno cashirkii hore. marka waxaan niri adjusting oo dhan waxa lagu soo koobi karaa laba nooc, deferrals iyo accruals. labadan deferrals laba u sii kala bixi revenue and expenses. deferrals revenue waa marka ay lacagta shirkadda loo hormariyo ayna service-ka wali gudbinin. deferrals expenses na waa prepaid expenses markay ayada hormariso ayna wali service-kii helin. accruals revenue service-kii bay gudbisay lacagtii lama siinin, ama accruals expenses lacag ayaa lagu leeyahay oo wali lacagtii lagu lahaa salary-gii iyo wixii la midka ahaa maynan bixinin. marka adjusting accounts waxaa lagu soo koobi karaa afarta nooc ayaa lagu soo koobi karaa. horey ayaan usoo wada qaadanay casharadaasi. qofka rabo wuxuu ku laaban karaa videoga kor kaaga soo muuqanayo. marka bal aan dib u diyaarinno waxaan niri preparing financial statement. let's use fast forwards adjusted trial balance to prepare the company's financial statement. kaalaya aan isticmaalno trial balance-kii aan adjusted garaynay aan dib u habeynay ee shirkadii fast forward sifa aan u diyaarinno financial statement. financial statement markaan diyaarinayno maxaan ku bilaabaynaa niri wiilba meesha wuxuu ka leeyahay income statement. waa runta income statement. marka waa adjusted trial balance la isticmaalayaa. marka ugu horeysa waxaan diyaarinayaa income statement. waligaa ha iloobin income statement ciwaanka waa inaad ku bilowda magaca shirkadda, magaca statementiga, waqtiga statementigaasi. income statement waxaa gudihiisa ku jiro revenue iyo operating expenses. kadib waxaad helaysaa markaad kala jarto net income. xageen ka soo qaadaya income statement? waxaad ka soo qaadaysaa from the trial balance. waa uun intan oo lagu dhigay meeshan lagu geeyey 7,300 waa 7,850 iyo 300 waxa weeyaan waxaa laga soo qaaday from here laga soo qaaday. expenseskiina intaa laga soo qaaday. marka net income-kii wuxuu noqday 3,785. markaan income statement aan diyaariyo maxaan u baahanahay inaan diyaariyo statement of change in equity. arday baa wuxuu leeyahay statement of change in equity ayaan diyaarinaynaa. waa run. maxay ka kooban tahay? beginning balance, net income. xageen ka keenaynaa? income statement yaa laga keeni. kadib maxaan sameynaynaa investment by owner plus weeye less laga daray ama add aan dhahno add way labadan less laga jaray withdrawals lacagtu isaga kala baxay. kadib maxaa kuu soo baxayo ending balance oo capitalkii ahaa. kan xagu aadaya balance sheet-ku aadaya. balance sheet-ka markaan diyaarinayno sidoo kale capitalka wuxuu ka imaaday change in equity uu ka imaaday from here to here ayuu ka imaaday. xisaabaadkan kale macallin xagee ka keennay? waxaan ka keennay from the trial balance. 4,000 ilaa 26,000 oo meeshan ku jirtay waa is the same oo meeshan loo dhigay. arday baa su'aal weydiinayo maxaa 26,000 aanan inta loo dhigin oonan 26,000 aanan inta loo dhigin? maxaa geeska inta loo dhigay? inta wax 26,000 waxbaan ka jaraynay oo niri accumulated depreciation-ka laga jariyo netted-keedaa la rabaa. soo marka la kala jaro intaa lagu kala jari kadib waxaa inta la dhigayaa netkiibaa inta la dhigayaa. liability-gina ayadana waxaa laga keenay trial balance-ga kulli laga keenay. waxaan ku gabagabaynaynaa casharka maanta aad buu u fududaa. waxaan fudaydka keenayo inaan horey u soo marnay. maanta keliya waxa weeyaan maxaa isbedelay? markii hore waxaan ka diyaarinaynay trial balance oo ah unadjusted. maantana maxaan ka diyaarinaynaa adjusted-kii. waxay ka kala duwan yihiin keliya trial balance-kii markii hore aan ka diyaarinaynay waxay ahayd unadjusted, maantana adjusted wey. qaybta ugu dambaysa casharka maanta bahal waxaa jirto la yiraahdo profit margin. the profit margin ratio measures the company's net income to net sale. waxay qiimaysaa ama cabirtaa dakhliga ama profitka shirkadda heshay ayada oo ku cabirayso
total net sale waxa weeyaan wixii mabiicaadkeedii ama waxyaalihii ayada ee gatay. Okay, markaad rabtay in marka aad rabtay inaad profit margin aad hesho maxaad samaynaysaa? Net income ayaa waxaad u qaybinaysaa net sales. shirkad ayaa tusaale ahaan lagu soo qaaday net income-keeda 2006 toddobada 8 wuxuu ahaa 683 milyan ilaa 220 milyan. net sales-keen meequu ahaa 9,699 ilaa 9,043,000. marka aad u qaybisa markaad u qaybisa 683 aad u qaybisa waxa ku soo baxayso 7%. marka profit margin-ka markuu 7% yahay ama inta uu yahay 6%, kullama uu kor u kaco oo 7%, waxay ka dhigan tahay shirkadda inay korayso. kullama oo hoos u dhacana waxay ka dhigan tahay in shirkadda indicator xun ay tahay oo shirkadda ay hoos u socoto oo ay decline ku socoto, shirkadda ay hoos u socoto ayay ka dhigan tahay. marka tusaale ahaan 2006 shirkadda waxay ahayd 7%, 2009 2%. marka shirkadda waxay ka dhigan tahay hoos u dhac weyn baa ku yimid shirkadda oo waxa weeyaan markii hore growth bay ku socotay kadibna hadda decline-kii bay gashay. cashirkeena maanta intaas ku eg yahay. waad ku mahadsantahay daawashada. waxaad igala socon kartaa mar walba Mustafa Xareed Channel-kaas. waxaad kusoo biiri kartaa groupka aan ku leenahay. waxaad kusoo biiri kartaa groupka aan ku leenahay Telegram-ka Somali Accountant. haddii aad videogan ka heshay gaarsii ardayda kale u baahan. inta aan cashirka kale ku kulmayno waxaa idinkaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.